xaafadahaasi waxay ahaayeen dumarka guryaha dumarka zinaystay ahaayeen. السلام عليكم سيدات فيديو bilowgiisa ku arkayseenba Soomaalida waxay tiraahdaa geedku hadduu yaraantu ku qalloocdo weynigu kuma tooso Soomaali halkay wax kaga halaabeen waa bilowgii iyo dawladii hore bal videogan ayaa cadeen inooga filan bal aan wada daawano oo si fiican u dhuux heerkii Soomaaliya ay ahayd iyo markay nimcooyinka Rabbi ay dhax mushaaxdayna waxyaalihi ay sameysay dhaxdiina ka baxa videoga xaafadahaasi waxay ahaayeen dumarka guryaha dumarka zinaystay ahaayeen dawladdu canshuur bay ka qaadi jirtay waqooyiga marka la soo baxo fucking house baa ku yaal Hargeysa iyo meelaha la midka xamar burkaro la ku taal meel la yiraahdo dawlad iyo qaran iyo dal dhisan baynu ahayn oo calan leh oo adduunyadu ka haybaysato afrikaankan iyo wax la mid ah hooska iyaga ma soo istaagi jirin Soomaaliya hooska iyaga ma soo istaagi jirin meesha la joogay adduunka dawlad calankeedu ka babadayno ahayn ma inaga saa isu galay mise ilaahay baa saa inoo galay inaga saa isu galay ilaahay cidna ma dulmiyo wama rabbuka bidhallamin lil abid markaynu ilaahay diintiisa meel iska dhignay ku ciyaarnay xumaan iyo macaasi la sameeyay dadka dhalinyaradu garan maayaan ragga waaweyn way garanayaan waxbarasho bilaash ah koronto bilaash ah caafimaad bilaash ah wax kasta nidaam ardayga jaamacadda dhiganaya pocket money buu lahaa baska uu raacay iska dhaaf lacag baa la siin jiray heerka aynu gaadhnay aynu joognay aqoonteenu heerka ay gaadhay heerka markii la gaaray ilaahay baa lagu caasiyay khamrigii baa la cabay hoteelo iyo baar lagu tuntaa la sameeyay xaafado iska dhan baa ku yaal magaalooyinka waaweyn ee wadanka dhalinyaradu wixii qixi ka dhashay kadib ma garanayaan xaafadahaasi waxay ahaayeen dumarka guryaha dumarka zinaystay ahaayeen dawladdu canshuur bay ka qaadi jirtay xamar burkaro la ku taal meel la yiraahdo waqooyiga marka la soo baxo fucking house baa ku yaal Hargeysa iyo meelaha la midka ma u jeeda heerkaasaanu gaadhnay haddaad ilaahay isku taagto araxda laga jabinaya ninna ilaahay iska meelin karo subhanahu wa ta'ala waxaynu ku hanan karnaa dalkeenna badaynu ku hagaagaysa oo dalkeennu ku hagaagayaan oo amnigeenu ku hagaagaya oo dawladnimadeenu ku hagaagayna diinteena inaanu ka rusheegno ilaahay ku kalsoonaano diinta ku kalsoonaano taasaynu ku walaaloobayna qabyaalada iyo qurunka dhexdeena ka saarno dhiiga daadan iyo ku joogsanaya taasa ilaahay naga raali noqonaya videogan ayaa wax walba inooga filan maantana waad arkaysaa Soomaaliya gees ilaa ka gees dabba ka shidan micnaheedu isku soo wada duubo waa in ilaahay subxaanahu wa ta'ala loo noqdaa dunubta la galayna waa in ilaahay subxaanahu wa ta'ala looga toobad keenaa Soomaali haddaan loo kala turjubaanaynin kala diin iyo kala madhab aysan ahayn kala dal aysan ahayn wax walba midibka iyo muuqa wax walba ay ka midaysan yihiin haddana salaada halka iska qaban laadahay garan laadahay salaada halka iska qaban laadahay videogaad ku daawatay warku waa iska cad yahay laba ilma adeero isla dhalatay ayaa tuulo yar isku dhagax tuurayso dadka ku dhex noolaayeen ay ku dhex dhamaanayaan nin walba iska fahmi kara marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu toobad keeno amnigana aan ka shaqeyno meel walba Soomaaliya ay joogtaan waa la isu baahan yahay lama kala maarmee yaana la soo taag sheegan cid ka reyn karta malahan toobadana mar walba Allah waafajiyo dambigeena dam waalidkeena Allah dhaafo gafkeena geerideen ilaahay ma kulmiyo haddii aad halkaan la soo gaartay waxaan ka codsanaynaa videoga reaction nagama ahan waxay naga tahay wixii wanaagsan inta mobilada iyo jabka naga ku haysan lahayn inaan umada la wadaagno waxaan ka codsanaynaa ina videoga noo share gareysid si uu meel fog u gaaro